aynu ku bilownay garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ayaa waxaa la wareegay ciidamo ka amar qaata wadaadka lagu magacaabo Macalin Maxamuud. Rijaal Cabdi Maxamed ayaa faahfaahinaya warkan. wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ayaa waxay sheegayaan in ciidamo ka tirsan ururka Al-Sunna wal Jamaaca ay dhawaan ku biiray maamulka Galmudug inay la wareegeen gacan ku haynta garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb kaasoo maalmihii ugu dambeeyay ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku sugnaayeen isla markaana ay isku hayeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo sidoo kale ururka Al-Sunna wal Jamaaca ay ku sugan Dhuusamareeb cidda lagu wareejinayo gacan ku haynta garoonka maadaama qaar ka mid ah degmooyinka gobolada Mudug iyo Galgaduud mas'uuliyiinta ku nool ay sheegeen inaysan imaan doonin kana soo degan doonin garoonkaas haddii ay gacanta ku hayaan ciidamada ururka Al-Sunna wal Jamaaca. qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa xaqiijiyay in ciidamo ka amar qaatan Macalin Maxamuud oo ah hogaamiyaha ururka Al-Sunna inay maanta la wareegeen gacan ku haynta garoonka kadib markii la sheegay inuu macalinku ka soo horjeestay ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya kuwaas oo laga qaadayay magaalada Muqdisho isla markaana la geynayay magaalada Dhuusamareeb. Macalin Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa isku khilaafay habka loo marayo ciidamada cusub ee ka socda dowladda dhexe ee Soomaaliya ee la geynayo magaalada Dhuusamareeb kuwaas oo sugi doona amniga doorashada iyo sidoo kale ergooyinka ka qayb galaysa shirka dib u heshiisiinta dhawaan ka furmaya magaalada Dhuusamareeb amaankooda. inkastoo wili aysan si rasmi ah uga hadlin mas'uuliyiinta Galmudug ee ku sugan Dhuusamareeb iyo kuwa Al-Sunna wal Jamaaca iyo mas'uuliyiinta dowladda, haddana wararku waxay sheegayaan in ciidamada garoonkaas la wareegay uu soo diray Macalin Maxamuud isla markaana uu ku amray wax ciidan ah inaysan garoonka ka soo dega karin ayna dib ugu celiyaan diyaaradii ciidamo sida ee ka timaada magaalada Muqdisho. xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in dowladda Soomaaliya ciidamo ay ku daadgureynayso magaalada Dhuusamareeb kuwaas oo ay sheegeen inay qayb ka yihiin ololaha dowladda Soomaaliya ay ku doonayso inay dib ugu soo laabato 2020 isla markaana kuraasta xildhibaanada ciidankaas ay yihiin kuwii sidoo xoogga ku soo saari lahaa. xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa sidoo kale tilmaamay in nasiib darro tahay in ciidamo lagu daabulo magaalada Dhuusamareeb oo ammaan ah isla markaana magaalada Muqdisho oo amni darro ay ka jirto ciidamadii lagu talagalay in dadka amnigooda sugaan laga daadgureeyo. wasiirka waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in shatiyada ay kala noqonayaan dugsiyada aan isticmaalin manhajka cusub ee wasaaradda waxbarashada ay soo saartay. Axmed Tifo Xasan ayaa si faahfaahinaya warkan. wasiirka waxbarashada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo maanta ka hadlayay tababar loo furay macallimiin qaadanaya habka manhajka cusub ee qaranka gaar ahaan dowladda federaalka ee Soomaaliya ay diyaarisay ayaa waxa uu sheegay in shatiyada ay kala noqonayaan dugsiyo ku yaala magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka oo uu sheegay in aysan si wanaagsan ardaydu wax u barin waxaana uu tusaale u soo qaatay ardaydii sanadkan 2018-2019 dugsiga sare waa imtixaankii ay galeen isagoo sheegay in arday badan iskuulo ay ka dhaceen. waxaana uu sheegay wasiirka waxbarashada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre in iskuulaadka ay farayaan in manhajka qaranka ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ay soo diyaarisay ardaydu ay siiyaan iyagoo kormeeri doona xubno ka socota wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya haddii lagu helaana in aysan si wanaagsan ardaydu ugu siinin casharada ama daraasada ku qoran manhajka dowladda ay soo diyaarisay gabi ahaanba albaabada leesugu dhufan doono ama loogala naqon doono shatiyada wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ay bixiso. hay'ad kasto dugsi kasto wuxuu ku qasban yahay in fasalka koowaad ilaa fasalka sideedaad buugtaas oo isticmaalo. annaga wasaarad ahaan iyo xukuumad ahaan waa naga go'an tahay inaan hubinno in manhajka la qaato. dugsiyada qaarkood imtixaanka hadda la soo dhaafay waxaa badnaa dugsiyo badan oo runtii mug badan leh oo hal arday ka baasi. hadda waxaa qiyaasi dugsi dhan oo hal qof ka baasi oo hal iskool ahayn, laba iskool ahayn, saddex iskool ahayn, afar iskool ahayn, 10 iskool ahayn. waxaan rabnaa inaan hubinno dugsiyadaas haddayba sii jirayaan. dugsiyada meel kasta ay waddanka joogaan inay isticmaalaan. dugsiga isticmaali waayo
sabab uu isticmaali waayana nool muuqata sababtu waxay doontaa noqoto qofkii aan isticmaalin dugsigaan isticmaalin dugsigaas shatigaan kala noqonaynaa waalidiinta dugsigaas carruur geysatana tv-ga uga sheegaynaa iyo raadiyaha oo aan leenahay kulli go-in ardagaaga meel cidlaha ayaa lagu wadaa inaan heerkaas isla gaarno ma rabno waxaa loo baahan yahay in laysla dhigo nuglaado waxaa loo baahan yahay in laysku hogaansanaado tacliimtu fawdo iyo qof walba meeshuu rabo inuu aado kuma shaqayn karo. tababarkan maanta ka furmay muqdisho ayaa la siinayaa macalimiinta iskuulaadka si loogu tababaro manhajka qaranka ee dowladda soo diyaarisay waxaana jirta in sidoo kale macalimiintan ay tababarka uu socon doono ilaa iyo muddo 10 maalin ah waxaana la rajeynayaa sida wasaaradda waxbarashadaba ay sheegtay maanta inay si wanaagsan uga faa'iideystaan. xafiiska xeer ilaalinta guud ee ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa soo saaray awaamiir cusub oo la farayo guud ahaan qaybaha kala duwan ee ciidamada Jubbaland. amarkan ayaa yimid xilli dhawaan lagu wado in doorasho ay ka dhacdo Jubbaland isla markaana laga cabsi qabo in qaar ka mid ah musharaxiinta ay adeegsadaan ciidamada maamulka Jubbaland. waxyaabaha la faraya ciidamada waxaa ka mid ah in aan lagu arkin arrimaha doorashada iyo siyaasadaba waa in ay ka madax banaanaadaan qabiileysiga iyo qabyaalada waa inay ka madax banaanaadaan nin jecleysiga waa in aysan ku milmin arrimaha doorashada. sidoo kale guddigan waxa ay sheegeen haddii lagu arko askarta iyo saraakiisha hogaaminaysa ciidamada ayagoo ku dhex milmay arrimaha doorashada iyo siyaasiyiintaba in saraakiisha ay farayaan in ay hor keenaan guddigan si loo marsiiyo sharciga. markana waxaan dib ugu laabanaynaa wararka ku saabsan ciidamada Somaliland iyo Korneel Caare ayaa waxa ay ku dagaalameen deegaan ka tirsan gobolka Sanaag waxaana la sheegay in degmada Ceergaabo lagu arkay ciidamo hor leh sida mar kale warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Axmed Tifo Xasan. inta la xaqiijiyay hal askari oo ciidanka maamulka Somaliland ka tirsan ayaa ku dhaawacmay dagaal dhex maray waa dagaal deegaanka lagu magacaabo karin ku dhex maray ciidamada maamulka Somaliland iyo jabhadda uu hogaamiyo Generaal Caare ee maamulka Puntland taageersan waxaana deegaankaasi uu ka tirsan yahay gobolka Sanaag. jabhadda Korneel Caare ayaa la sheegay in ay weerar ku qaadeen deegaanka karin oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka Somaliland. dhaawaca askariga ayaa la geeyay cisbitaalka guud ee magaalada Ceergaabo waxaana uu ka tirsan yahay guutada 99aad ee ciidanka Somaliland sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogayaal. dagaalka ayaa yimid kadib markii jabhadda Korneel Caare ay shalay ka guureen goobtii horay ay u deganaayeen una dhaqaaqeen deegaankan cusub oo ku yaala jidka muhiimka ah ee Tabca waxaana la soo warinayaa in magaalada Ceergaabo ee gobolkaasi Sanaag hadda lagu arkayo ciidamo badan oo hor leh oo ka tirsan maamulka Somaliland waxaana jirta in dagaalku uu dajisan yahay ama uu qaboojsan yahay iyadoona aysan jirin wax rasaas ah oo dhacaysa waxaana dadka qaar ee maamulka Somaliland gaar ahaan gobolkaasi Sanaag ku sugan aaga uu dagaalka uu ka dhacay ayaa soo sheegaya in ciidamadan ay suuragal tahay in ay u jihaystaan dhinaca magaalada karin waa dhinaca deegaanka karin oo dagaalku uu ku dhex maray ciidamada militariga maamulka Somaliland iyo jabhadda uu hogaaminayo Korneel Caare oo 90 kilomitir u jirta. Somaliland ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay geenaysay ciidamo aad u fara badan si ay sheegtay ay kaga hortagaan khataro iyaga ku imaan kara. xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo lagu waday maanta oo Sabti ah inay yeeshaan kulankoodii caadiga ahaa ayaa la sheegay inuu baaqday. xubnaha senatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu wargeliyay dhammaan in ay soo xaadiraan xarunta golaha si ay uga qayb galaan kulanka aqalka sare oo maanta laba hindis sharciyeed
aqrinta koowaad lagu marsiin lahaa ajandayaasha muhiimka ee aqalka sare horyaala eena ka doodi lahaayeen ayaa waxaa ka mid ah hindis sharciyeedka howlgelinta xaqsiinta iyo hibooyinka xubnaha ciidamada qalabka sida iyo hindis sharciyeedka batroolka sida uu sheegay guddoonka golaha aqalka sare balse wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta guddiga arrimaha bulshada iyo warfaafinta waxa uu warbixin ka siiyay caqabadaha horyaala warbaahinta dowladda iyo tan madaxa bannaan ee ka shaqeeya gudaha dalka Soomaaliya. aqalka sare xaruntiisii oo aanu kula kulannay guddiga arrimaha bulshada warfaafinta ayaanu kula kulannay guddoomiyaha iyo tiimkiisa senatariska oo aanu runtii la wadaagnay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska howlaha ay hayso arrintaasoo ah arrin dastuuriya sida guddoomiyuhu sheegay waajiba in wasaaraduhu ay guddiyada ay isku shaqada yihiin ee u xil saaran inay kormeeraan howlaha ay hayaan markii waqti la joogaba ay warbixin ka siiyaan meesha wax u marayaan warbixin guud baanu siinay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska waxyaalaha ka socda caqabadaha jira horumarka jira iyo guud ahaan warbaahinta Soomaaliyeed ama dawladda ha lahaato ama dad gaari ha lahaadeen qaabkay u shaqeeyaan iyo sida wacyigelinta bulshada iyo dalku ay u socoto iyo waxyaalaha haysta warbaahinta Soomaaliyeed ama gaarka loo leeyahay ama dawladuhu leeyihiin dawladdu leedahay. kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo guddiga arrimaha bulshada iyo warfaafinta warbixin ka siinaya caqabadaha warbaahinta dowladda iyo tan madaxa bannaan. markana mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa Sacuudiga waxa ay ku soo dhaweeyeen xujayada Soomaaliyeed ee halkaas gaaray. Maxamed Cabdiraxmaan ayaa faafahinaya. wasiirka xogeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya Cusmaan Aadan Dhuubow ayaa magaalada Madiina al-Munawwara ee dalka Sacuudi Carabiya ku soo dhaweeyay xujayada Soomaaliyeed ee halkaasi gaaray si ay uga warqabaan xaaladda xujayada. wasiirka oo socdaalkiisa indhaynta iyo soo dhaweynta ah ay ku wehelinayeen qonsulka guud ee Soomaaliya u fadhiya magaalada Jiddah Ilyas Sheekh Umar la taliyaha wasaaradda Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif iyo mas'uuliyiin kale ayaa waxa ay gaareen garoonka diyaaradaha ee Madiina si ay ula socdaan xujayada halka ay degayaan iyo sidoo kale xaaladahooda guud. Cusmaan Aadan Dhuubow wasiirka xogeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya ayaa sheegay in ay wadaan dadaalo ballaaran oo la xiriira ka warqabka xaaladda xujayada iyo fulinta adeegyada ay u baahan yihiin taasi oo qorshaha ugu talagaleen ay tahay dowladda federaalka Soomaaliya isagoo intaasi raaciyay in ay sii laba jibaari doonaan howlaha ay halkaasi ay u joogaan. waa kuwan qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xujayada ku soo dhaweeyay Sacuudiga gaar ahaan magaalada Madiina al-Munawwara. waa tirakooبkooda ama tiradooda maanta hadda timid xujayada sida gaarka ay soo qaaday Ethiopian Airlines waa 265 runtii waana daily flight ba inta badan ay tahay waa kullayba aad iyo aad baan u leenahay insha Allah taala inta hadda aan gaarsanahay in ka badan inaan sii gaari doono in ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogtay wixii aan ballan qaadnay ee ka dawlad ahaan ee systemka wasaaradda ayada ku hogaaminaysa iyadoo ay wada socdaan wada shaqeyn muhiim ahna ay kullayba dadaal dhinaca mas'uuliyadda ay markasta ku garab taagantaa. waxaa maanta farxad weyn inoo ah aniga iyo wasiirka in howsha socota Jidda iyo Madiinaba ay tahay howsha ugu qiimaha badan ay dadka Soomaaliyeed ay u baahnaayeen. markaad aragtid xujayada farxadda ka muuqata waxaan isleeyahay iyada waxay ka fargareyn doontaa baahida badneed ee Soomaaliya ka jirtay. ducada ay u duceynayaan dalkoodana waxay noqon doontaa insha Allah rajaynaya in wax badan ay ka bedesho dhibabka farbadana isdaba joogga ah ee dalka Soomaaliya ka jiray. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dhawaan u dirtay dalka Sacuudi Carabiya guddi ka shaqeynaya